Barnaamijkeena ciyaaraha ee maantana waxaan ku eegaynaa kulamadii xalay laga ciyaaray horyaalka Premier League Ingiriiska. Waan ogeyn kulankii xiisaha lahaa waynaga ka soo hadalnay ee u dhexeeyay Liverpool iyo Manchester United, waxaana ku soo dhammaaday 2 gool iyo 2 gool. Kooxda Manchester United waxay faa'iido weyn u keentay, isla markaasina ay Liverpool u qabatay kooxaha Man City iyo Arsenal oo iyaguna ku jira tartanka horyaalka ee sanadkan. Kule waynu arki doonaa kulamo badan baa soo socda, ilaa 8 kulan oo daba la ciyaari doona. Kooxuhuna waa kulamo adag yihiin, laakiin Ingiriiska lama hawl yaraysan karo. Kulamada kale ee dhacay xalay waxaa ka mid ahaa kulankii u dhexeeyay kooxda Chelsea iyo kooxda Sheffield United. Kulankan laftiisa waxa way baraajo ku dhammaaday 2 gool iyo 2 gool ah. Kooxdii Chelsea markaas sidaan hore u sheegnay meel uma socoto, halkeedii bay taagan tahay. Tababaraha kooxda Chelsea oo hadlay waxa uu sheegay inay barbaro la galeen kooxda Sheffield United inay tahay wax sax ah. Labada tiimba sida u ciyaareen macnaha ka hadlayay wuxuu lahaa ciyaartaas ciyaar isku dhimata oo baraajo ah bay ahayd. Mar wax laga weydiiyay bal hadda siduu wax u wado iyo weli inaanu goolo waaweyn gaarin. Waxa uu sheegay in magaranaysa tiimkani ay wax badan baranayaan, magaranaysa tiim aad u yar ay yihiin. Wixii waxna mucjiso kuma yimaadaan, laakiin markaad wax dhisaso waxay qaadan kartaa 3 sano, 5 sano inaad magaranaysa tiim wanaagsan oo wax weey sida doonayso ciyaaro aad samayso. Laakiin Chelsea sida ugu barnay nooca ma aha. Malaha shaqada uu sii xijisanaya, laakiin xaaladdu waa ku xuntahay isagana tababaraha Pochettino oo kooxda Chelsea ilaa imika guulo waaweyn aan gaarsiin. Kooxda Tottenham baa iyaduna xalay la ciyaartay kooxda Nottingham Forest. Marka kulankani kulan u badan buu ahayo 3-1 buu ku soo dhamaado. Kooxda Tottenham baa badisay kaalinta afraad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska ayay soo gashay. Kulankii xalay u dhexeeyay kooxaha Manchester United iyo Liverpool, tababare Klopp waa hadlay, wuxuu ka hadlay Arsenal. Wuxuu yiri markaa Arsenal waa tiim aad u wanaagsan. Haddii Manchester United sida ay anaga noola ciyaartay ay ula ciyaarto, Arsenal baa guuleysan doonta. Weli wuxuu 100% huba inay magaranaysa guuleysan doonto haddii sidii Manchester United ay noola ciyaarto. Isagoo ujeedkiisu yahay macnaha dee kubad ma ciyaarin, anaga unba looga hadna qabtay ayuu ula jeedaa macnaha oo dee wax lagu badan karo nimankaas xalay meesha may keenin, laakiin anaga unba nimankii magaranaysa neerinayay noo jabiyay. Marka qoradana intaas waxa la ku tuuray. Haddii aynu ku sii socono magaranaysa weli Liverpool iyo tababare Klopp wuxuu yiri dhammaan waqtigoo dhan intan Liverpool magaranaysa waqtigan Liverpool coach ka ahaa dee mar kasto aan ciyaarano anaga Manchester United dee tiimka iyo ciyaarta anaga maamuli jirnay, laakiin maanta maanu samayn waxaanu doonaynay maanaan helin natiijadii aanu u baahnay. Sababtoo ah horyaalkii u halgamayeen, laakiin way qabteen oo dhibcaha la qaybsadeen. Marka taas kule ciyaartina waa ka bartay hore aanu la ciyaari jirnay dee maanu soo bandhigin. Waana runtii Liverpool marka United sanadii u dambeysay la ciyaarisay dee si fiican ugu dhalin jirtay goolal badan 7, 4, 5 saas ugu soo badisay. Inkastoo labada ciyaareed u dambeeyay midna FA Cup ka ahayd oo midna ay tan Premier League xalay ahayd, labadaba ay Manchester United badisay. Mohamed Salah oo ka mid ah ciyaaryahanada goolasha ugu badan ka dhaliyay kulanka u dhexeeya labadan kooxood ee Liverpool iyo Manchester United ayaa isaguna xalay wuxuu gaaray 14 gool inuu dhaliyo 15 kulan oo labadan kooxood dhexdooda ciyaaray. Marka barnaamijkeena ciyaaraha si guud baynu maanta u dalbanay waxyaalaha hadalhaynta ugu badan ee ka jirto iyo waxyaalaha tababarayaashu ay ka yiraahdeen ciyaaraha ciyaareen. Intaas ayaan ku soo koobanaa.